iyadoo maalmo ka hor ay u fariisteen baarlamaanka UK ee aqoonsiga Somaliland una halkaa geeyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka UK halkaana laga soo saaray ajenda qoraya in Soomaaliya iyo Somaliland ayagu arrimahooda ay wada xallisanayaan markaana aysan UK faraha gelin doonin ayaa maanta banaanbaxayaal waaweyn waxa ay ka soo baxeen magaalada Burco iyo sidoo kale Hargeysa taasoo jidha haddana maanta Boorama waxaa ka soo baxay iyagoo geestooda dad kale oo muujinaya shucuurtooda kuna dhawaaqaya ma doonayno jamhuuriyadda gooni-sutaaga ee Somaliland waxaanu nahay Soomaali waxaanu nahay dad la caburinaya mana yeeli doono gooni-sutaaga Somaliland hadday go'ayaan annaguna waa ka go'aynaa waana kuwaan u sheegteen guudkii hortiina ku sheegteen annagu xasuuqeen anu sheegayaa beesha dhexaad iyagu xasuuqoodii way sheegteen oo adduunka korkiisa u sheegteen guudkii hortiina ku sheegteen annagu xasuuqeega yaanu sheeganaynaa iyaa la weydiinaya dadkan qiiradu ka muuqato markaana ilmeynayo ayaa waxay sheegayeen in jamhuuriyadda gooni-sutaaga Somaliland 30 sano ee ay goonida u taagneyd ay tacaddi iyo dhib badan kula kacday markaana arxan darro ah ayaguna ay shucuurtooda muuqsanayaan Soomaaliya intii ay kaliya talisnimada ku jirtay ahayd ayagusa inay u sheegtaan maanta aysan haysan hase yeeshee aysan ku sii jiri doonin kana go'i doonaan jamhuuriyadda gooni-sutaaga Somaliland aysan reer kaligiisa u xabisnaan doonin maamulka Somaliland ee goonida isu taagay ayaa wuxuu sheegtaa inuu yahay maamul dimuqraadi ah markaana buuxiyay dhammaan shuruudihii lagu aqoonsan lahaa balse taasi waxay beenisay markii la sacaano Boorama iyo gobollo kale oo ka tirsan Awdal iyo Sool iyo Say ka soo baxeen banaanbaxayaal har iyo habeen baan harsan 30 sano ay goonida u taagneyd Somaliland shucuurtoodana muujiyo balse aan laga hoos qaadin xaasismay weydiin mudan waxay dawladda federaalku indhaha uga qarsanayso oo ay eegi laadahay dadkan Soomaaliyeed markaana dhibaatada lagu kacay qarniga 21aad Somaliland waxay sheeganaysaa dimuqraadinimo waxbana kama dharbana ayaa la dhihi karaa markii si loo fiiriyo labo waxa la dhihi karaa sida dadkanigba ku dhawaaqayaan waa dad qabali ah oo hal reer ah hal familina iduma aqoonsan karo waxayna ku ciyaarayaan sharaftoodii ismanooga saddex waxa ay ka cabanayaan waa nin kaliya talisa oo Soomaali oo dhan wax u geystay markaana ayaga laftirkoodu ay ka mid ahaayeen saraakiishii askartii waqooyi weeraray markaana bari iyo waqooyiba gumaaday askartii bari iyo waqooyiba gumaaday ninka hadda arriminaya ee Muuse Biixi lagu magacaabo wuxuu afkiisa nooga sheegay inuu ahaa gaal sareeya baylooda markaalaha duuliyo markaana uu diyaaradihii rusheynaya Hargeysa waa soo waday alida hadda koor waxaa laga soo gumaystay gacanta balse haatan miskaxda ayaa laga gumaystaa kala barobar kowna waxaa ka ah dadka reer Somaliland oo niyadooda la geliyay oo dad loo gelinayo walaalahood Soomaaliyada kale sida aan wada ognahay Muuse Biixi wuxuu ku hadaaqay in la soo xiro saraakiishii u shaqeynayay dawladda kacaanka balse buuga kuma darsan asagu inuu ka mid ahaa raggii duqeynayay magaalada madaxda Hargeysa Muuse Biixi afkiisa wuxuu nooga sheegay 2018 inuu duulinayay diyaaradii duuliyaha lahaa ee qumaatiga uu ka jiray ee Soomaaliya ee markaa duqeynaya magaalada madaxda Hargeysa ee gobolada waqooyi si kastaba ha noqotee sidee bay shacabka reer Somaliland iyadooda u gashay ayagoon Muuse Biixi u talinaya inay dhahaan Soomaaliya nagumaaday siyaasada Muuse Biixi miskaxdooda u gumaystay 7 milyan ee reer Somaliland qiyaas ahaan reer Somaliland waa Soomaaliya kala barkeed markii la fiiriyo koonfur iyo waqooyi sidaas ay tahayna waxaa gumaysanaya madaxana ka haysto hal shakhsi oo kursi ku fadhiya 5 sano rabana inuu kursigiisa ku ilaalsado waxa la isdhihi karaa si qabali ahaan ayaa loo daafacayaa Muuse Biixi si kastaba ha noqotee reer Somaliland waxay iska dhigayaan dad dawlad ah markaana u shaqeynaya sidii dawladnimadii iyo dad xorriyad raba balse caalamku markaste oo eego waxa uu muuqanayso sawirmayso hal beel oo meel isugu timid
kuna shirayso beelna lama siiyo xorriyad madax bannaan.